Akhyaartan fiirsada ay tamay basing lana hamin faylaha ka dhawaada warka TV-ga Mayle. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa magacdhabay guddi farsamo ka dhawaada video oo dhameystiran oo linku hadalow shirka la kobcdo doona magaalada Baydhabo ee caasimada Mayle. May basing lana fiirsasho fayla. ujeedo magacaabidda xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeynaya qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, markuu arkay magacaabidda xubnaha ay soo gudbiyeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, markuu tixgeliyay habraaca hirgelinta heshiiskii siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020-2021 ee heer federaal iyo guddiyada doorashada dadban ee heer dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho 1 Oktoobar 2020 gaar ahaan faqradda labaad ee mabaadi'da, markii uu xeeriyay mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay'adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka iyo gobol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wada tashiga qaran kaasoo lagu dhameystirayo wada hadaladii arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeyay dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Qodobka koowaad magacaabid. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, waxaana ay kala yihiin sida tan: 1. Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac, wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka. 2. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. 3. Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland. 4. Cabdulaahi Cali Xirsi Timcade, wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Puntland. 5. Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. 6. Mursal Maxamed Khaliif, wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. 7. Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug. 8. Aadan Cusmaan Xuseen Qoryooley, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Galmudug. 9. Axmed Madoobe Nuunow, wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 10. Maxamed Abuukar Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. 11. Maxamed Cali Caadle, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. 12. Caasha Khaliif Maxamed, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. 13. Basma Caamir Axmed, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir. 14. Xiirey Axmed Rooble, xogayaha gobolka Banaadir. Qodobka labaad, dhaqangalka magacaabidda. Magacaabidani waxay ku dhaqangalaysaa isla marka uu saxiixo ra'iisul wasaaruhu, waana uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ee dowladda. Wabillahi tawfiiq.